ninkan iyo naagtan soo baxaya waa isqabaan oo naagtan waxay rabtaa inay shaqadeeda aado wayna baxaysaa ninkeeda ayaa macsalaameynaysaa. naagtani marka ay soo baxdo ninkani wuxuu damacsan yahay mission weyn balse ila arka. naagtan aad aragtan hadda albaabka ka baxaysa ma ayna tegin oo waxay damacsan tahay inay sirta ninkeeda uu ka qarinayo ay bannaanka u soo saarto. waa ay soo laabatay naagtii halkaasna calaamada ku qabanaya ayay mara madow kala soo bixi doontaa bal ila arka waxa ay samayso. waa la sayacaawa naagtii halkaas ayay isku daday marada oo albaabka hoostiisa ninkii ayaa markan soo bixi doona oo guriga gudihiisa ka soo bixi doona. waa kan hadda ayuu taleefanka ku hadli doonaa oo waxa uu rabaa inuu la hadlo labada naagood ee u ballansan. xabiibtii imow islaantii waa iga tagtay buu leeyahay. waa la sayaa labadii naagood waa kuwan way soo dhow yihiin waxa ayna ka soo geli doonaan albaabka. taleefankii ayuu jeebka gashtay labadii naagoodna waa kuwan soo galay balse waxaa la yaabaa inay naagtiisu ay joogto ayna maqlayso wax walba ay ku wada hadlayeen. labada naagood ayuu garabka saari doonaa waa uuna dhudhunkan doonaa. alla waa la ishayaayey. labada naagood ayuu markan guriga la geli doonaa oo waxa uu samayn doonaa wixii laysu yaqaanay ee gabdhaha guriga loogu geysan jiray. bal aan aragno waxa ay samaynayaan kolley shaqadoodii ayay ku jiraan hadeer. waata haddaba naagtii waa ay soo kacday oo waxay doonaysaa ninkeeda oo shaqadii ku jira inay ugu soo gasho guriga. maradii ayay la laabatay boorsadii ayay garabka saaratay. haddaba guriga albaabkiisa ayay doonaysaa inay garaacdo baalaan isla aragno waxay samayso naagtan mideeda kalena waa boolis. waxa ay ku samayn doonto dhammaadka filinkan ninka ayay xidhi doontaa. albaabkii ayaa gargaraacday. ninku waa uu yaaban yahay wuxuu isleeyahay qofkan albaabka kugu soo gargaraacaya talow waayo. waa uu ka furi doonaa isagoo markaas aana xidhnayn wax shaatiya. waa uu soo baxay shaatigii iyo gabdhihii dharkoodii ayuu gacanta ku sitaa koofiyadii xitaa gacanta ayuu ku sitaa. naagtan waa yaabanta waxay leedahay dharka naagaha maxaa wariga ku geliyey maxay tahay waxa guriga ku jira. kadib isagoo xayraan indhaha ayuu u guduudinayaa oo koofiyadda ayuu gashanayaa. labadii gabdhoodna guriga ayay ka soo baxayaan ayagoo oon shaqadoodii weli dhammaysan. laakiin naagti waxa ay samaysay maadaama boolis ahayd waxay doonaysaa inay saldhiga geyso oo waxay ku leedahay ninkan wariyaa saldhiga ayaan ku geynayaa. bal waa arkaynaa ninkan meesha la geyn doono. ninkii waa la wadaa albaabka ayaa lagala bixi doonaa. naagtanne sidaa iyo ninkii ku xidhay laakiin albaabka ayay soo xidhi doontaa bal ila arka.